waxaan ku noolaa caasimada Muqdisho afartii sanadood ee ugu dambeysay waxaan ku noolaa caasimada Muqdisho gaar ahaan 400 oo mitir baan u jiray madaxtooyada gobolka Gedo laba habeen baan seexday gaar ahaan magaalo madaxdiisa Garbaharey dawladnimadii aan 4 sano ku dareemi waayay laba habeen baan ku dareemay laba habeen runtu waa sida laba habeen baan ku dareemay oo gobolka Gedo magaalo madaxdiisa Garbaharey aan seexday waxaan leeyahay gobolka Banaadir dawlad nabadgelyada laga raadinayo mas'uuliyiinta dalku ha yimaadeen gobolka Gedo oo caasimada Garbaharey ha yimaadeen marka run la doonayo oo ha dareemeen oo ha weydiiyeen oo seminaaro ha ka qaateen siday nabadda u dhiseen caasimad magaalo madax ilaa degmooyin ilaa tuulooyin la isugu soconayo iyo farxadda iyo reereynta nabadda 4 sano iga wallaan cuntadaan cunay meelay martay aanan garanayn والله مركز ولا دوني لبها بينا سيدانو كما إله ما سيدانو كما إله تاسوارتي وحنوجو باقي يعني من كم مركز كل نقطة ونشيجية خون هدان غير كلا قدقين ده صان ما يسوق وحلورين شري سمارة ده حلورين شرتي ناق بين بالقصة حرقليا خون نوالا قدقة وارياره هذا إنهم دولتنا ما ذكرت والله أنا أحس عنه أوكي أنت كذي وهذه لا مكتبات ده الله فرا مكتبات وكوي هو ناكسنا بالشدة هل كان كنا لليرايو ويل ومال تاريخية ومال هيدت كيدو ده يجاب الدولة ده اللي شيء هو الشعب maaha ciidan la soo waarido dawladnimadu ma dawladnimadu waa shacabka dawladda waa kuwa dawladnimadii ka muuqata shacab dawladnimadii ka muuqato oo aad dareemayso marka dhex joogto dawladnimadii alxamdulillah in maktabad loo furo taasi waa ta muujisay in waxbarashada ku noqdaan ay ku soo saaraan ubad waxbarashada ku sareeya ay ku soo saaraan dad lagu faani karayo oo lagu soo dhiirado maanta maktabadii saddexaad ama aynu oran karno maktabadii ugu caalamisanaa dalka Soomaaliya ayaa halkan laga furayo aanuunimi aniguna aad baan u bogaadinayaa oo jecelahay waxaan ka sheekaynayaa waxbarashada caqabadaha jira hablaha caqabadaha ka haysta waxbarashada waayadii horena ka haysan jiray iminkana way jiraan marka la eego caqabadaha in laga saaro loo baahan yahay waxbarashada oo hablaha fursadooda waxbarasho la siiyo inan hiba la yiraahdaan idinka sheekeynaya sheeka la yiraahdo abiidso oo cadaadi baan islahaaye ma cilmi barbaan islaha isla ku qoomaysay bal hadee ina yar ba jirtay oo habboon baa la oran jiray abeed Xuseen baa la oran jiray Xuseen laba ooriyood buu lahaa habboon hooyadeed way dhimatay ilaa in xariistii janna ka waraabiyo ooridii kale uu keenay oorida kale inan bay dhashay inanta ilwaad bay ula baxday aad bay u jeceshahay labada hablood waa isleegihiin iyo ilwaad iyo habboon dabadeedna ilwaad waxba uma dirto habboon bay abiidso istiraada dabadeedna shaqo walba way u dirtaa wax kasta waa reermi wax wala dhaqato dabadeedna sida haanta loo sameeyo sida meedhaxda loo soo diro sida hararka loo sameeyo shaqo kasta sida reerka loo dhaqo sida caruurta loo xanaaneeyo wax kasta waxay bartaa habboon qabo waxaas iyadoo ugu daraysa tontooma iyo ugu daraysa ilwaadna halka iska daaway tiraada iska fiirso isma oga inay cilmi baraysa abiidso oo cadaadi bay isleedahay inantaaduna ha raaxaysato labadii hablood baa gashaantiya noqday dabadeedna ilaahay alafkoodii buu keenayo habboon baa la horguursaday
habboon baa reerkay gashay ku baraaray saashaga kasta saasay u taqaanaa wax kasta alaabtii bay samaynaysaa qal Soomaaligi bal hadee eeg xoolii bay raacaysaa xanaanaynaysaa kala taqaanaa soo hoynaysaa soo dabaalaysaa carruurtii xanaanaynaysaa waa lagu baraaray markaas reerkii oo dhan berigii hore waxa loo degi jiray de dhowrkii qoysba muxuu ahaayay aag ayay xiran jireen markaas deer baaba lagu soo wareejin jiray dholalka imanka mooyii de chess-kan iyo reer iska guuraya markii hore way iska yaraa noloshan dambe colaadaha badan baad keentay dabadeedna waa lagu baraaray tii kale la guursaday war maxaa qabsaday toddobaadkii u horeeyayba reerkii gacantu ka taagay war maxay ahayd tani dabgeli kari mayso cunto kari mayso xoolihii ma kala taqaano haddii loo diray magacyadoodii iyo maxaygoodii tiradoodii markay soo hoynayso kala garan mayso bar baa maqan gebigoodii malaa 3 meelood meel bay wadaa warna uma hayso waa la yaabay maalintii dambe la yidhi war bal waxaraha loo diro waxari baa loo diray oo barqadii diga halkan oo la gubay bay waxari intay saa u yaaceen ku soo noqdeen mise 6 waxarood oo yar yar oo xoolaha aad u dhalay dhammaan digadii bay dhax galeen oo lagu bay ka wada huruushoodeen saasay isugu soo kale tiiba la arkay mise bismillaah reerkii baa wixii waxara kori lahaa daadan dhashay deertan dhashay halkaas ku baabeen deedna waxa la yidhi waxba ha u dirina aakhirkii waxay noqotay inantii in reerkeedii lagu soo celiyo jidhkeedii de baali basari areebo maryihii loo geliyay haantii ay lushay caanihii subagii wixiiba maradeedii buu ku daatay hagaajin male wareer waxa la yidhi tan inta la kaxeeyo gurigii hala dulgeeyo wakaa reerkiinii orodoo dhagaraan dabadeedna waa loo keenay hooyadeed markay aragtay tii kalena warkiisoo haysaa tan loo keenay ayay murara dilacday haweenkii baa soo booqday dariska markaasaa la yidhi nayaahe inantii habboon waxay ku dambaysay soo ma ogid haa waxaasoo cilmiga adaa baraya maxaa tan u hagratay markaasay tiri allah cabiidsaan islahaa oo cadaadiye ma cilmi barbaan islahaa waxaan uga dan leenahay waar hablaha waxbarashada ha lala ogaado waxaan goobjoog u ahaa inan yaro waxbarashada dee waa tanoo wiilashaa la jecel yahay in la aado in wax la baro 3 wiil iyo 2 gabdhood buu dhalay dabadeedna 3 wiil buu waxbarasho u diray 2 gabdhood mid baa yar midna way roonto waxbarashadu waa mid dood meeran oo hadal meeran karti badan oo de firfircoon inay maskaxina soo wado wanaagsan ku jirto way iska muuqataa sida najmo iyo hiba iyo aynu arkaynay in aqli badan ku duugan yahay waayahay way la dooday aabaheed waalidkeed bay la dooday waxay tiri nafara dambiga dhunta loogu habaa marka ay hirqataa dhibti ay ka hadhaa hadduu ooma garaadku hadduu ooma garaadku haraduu ka cabaa hilinkee u maraa baladee hablaha iyo wiilasha hor alle ma sintaano gabdhaha waad hagrataan hayinbaad ka dhigtaan heeca iska rartaaye hiba weeye aqoontii hal geeyay iskuulkeedii baladee iyadii baa doodaysa afkeedii bay ku doodaysa waayeelkiina hagaaye kol hadduu hiiwaaliyo uu hawaawi ku jeedo waa yacnaa qaad iyo fadhi ku dirir iyo waxyaabaha ku maqan yahay waayeelkiina hagaaye kol hadduu hiiwaaliyo uu hawaawi ku jeedo inta aan haladaadka dhashu aanay habaabin gaar ahaan hablihii rajadoodu xumaan hilaaca biliglaa hiyigaygu jiraayo hogashaa curataan halka ay ku da'ayso haqabeel ku hubaaye hiba weeye aqoontii hallaygeeya bay tiri tacliinta aakhirkii inantaa waxbarashadii waalidkii markay de iyadaa garnaqsanaysee waa la geeyey waxbarashadii saasay ku heshay nasiibkeeda kuwa aan doodayn baa jira markaa hadday rajo tahay hadday aqoon tahay hadday tahay iminkana markii la barakacay waxaa la ogaaday hablaha iyo wiilasha ninkii inan waxbaray dee guulaysay ama inani meel u tagtay ee u dhooftay ee wax u soo kii 5 lahaa sidii 5tii muxuu ahaayey 2 ninoo reer miyaba midna 5 wiil dhalay midna 1 gabadh dhalay
dabadeedna halka gabadh Nairobi baa lagu qabaa kana shantiisa wiilba Nairobi bay jiraan dabadeedna way israacay waa berigii hore xagga loo muxuu ahaayay loo la aadi jiray Nairobi isla iyo markay asaasmaysay dabadeedna dhaxday intii la maray uu kii shanta wiil dhalay yiraahdo oo adiga maxaa halka wada aad u socotaa de gabadh baa halka iga joogba gabadh baa intaaso wada u soo martay oo ma iska joogtay aad joogaa laga qaatay kan way iska aamusay lishan aniga shan bay ga horeeyo shan wiil jaamac baa ku jiro nina daran sugaal nin la yiraahdo haye kan waa iska aamusa Nairobi baa la tagayo masaajid bay ku dageeno kii gabadha dhalay baa markiiba muxuu ahay gabadhii ninkeedii oo gaari wata yimi meeyay abahay waa kan markaas uu sida ugu soo booday ninkii gabadha inantiisa qabay markaas gaari lagu qaatay xufkii kale lama dareemin markaas uu sidaas weegay jimcihii dambe la gaaro kiyo xaragoonayo dhar loo soo iibiyo shopping-kood yaabayso saa xashaashaya oo muxuu ahay la socdo ninkii inantiisa qabay oo la socdo ay soo galeen masaajidkii kiyo gidaarkii masaajidka saa u jiifo isku duuba ayuu yiri waariyaa maxaa meesha ku dhimay shantii wiil markaas uu warniyo shan lahayn mituuga oo ugu yar kaasa laba casho markuu iga maarada mar wixii keeno isna dib u maarko wixii kale aad sheegay markaas uu ma shantii wiil ba caynka